taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliska Somaliland taliyaha ciidamada birmadka hoggaanka dhismaha ee ciidamada booliska Somaliland gudoomiye ku-xigeenka gudiga qandaraasyada Somaliland maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama ayaa waxay saaka si wada jira u dhagax dhigeen dhismaha laba saldhig oo laga dhisayo magaalada Boorama dhagax dhigan ayaa waxa ugu horeeyna ka hadlay kana warbixiyay hoggaanka dhismaha ee ciidamada booliska ee Somaliland Mahad Shaqale waxana uu yiri labadan saldhig eenu maanta dhagax dhigayno waxa gacan weyn naga siiyay barasaabka gobolka iyo dawladda hoose ee degmada dadaalkani dadaal dheer buu ahaa waa 8 saldhig maanta waxa la dhagax dhigayaa hadiyaleedo oo laba Boorama yihiin midi wajaale yahay midi Balligubad leeyahay laba Hargeysa yihiin labana ay yihiin Ceerigaabo waa 8 saldhig oo aanu doonayno haddaanu nahay hoggaankii ciidanka bilayska inaanu hal mar wada dhisno waxaanu awood u yeelanay inaanu 8 saldhig hal mar wada dhisno annagoo leh aqoonteedii injineeradii aqoonteedii qalabkeedii waxa la wixii dhisme u baahnaa gaadiid intiiba annaga oo leh taasoo uu hirgeliyay jananka ciidanka bilaysku inuu ciidanka bilaysku yeesho hoggaan dhisme oo awood u leh inuu wax dhisi karo dhankooga waxa iyaguna halkaas ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Boorama Yaasiin Daheeye iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxana hadaladoodii kamid ahaa miimada amnigu leeyahay iyo culayska haystay degmo ahaan oo ahayd degmadu macnaha in laba saldhig oo kaliya degmada gidigeeda oo adeegaan waxaan uga mahad celinayaa markaa UNDP oo mashruucan iyaduna ahayd fundarkeedii in iyo sida loogu baahnaa in xilligii ku haboonaa keeneen in kalena in laga sugayo oo ay degmada ku fileen saldhigyada inta aanay ku fileen inanka halkan taagani waa reerkii beertan lahaa waa ninkii dhulka ku deeqay aad baan ugu amaanaynaa waxaan ugu ducaynaa in miisaanka xasanaadka isaga waalidiintii baa la u saaro inuu jandoon furdowsa hoyga nabadgelyada u dhiseen mid la mid ah jannada Ilaahay uga dhiso isaga waalidiintiisaba waxaan aad ugu mahadnaqayaa dawladda hoose ee degmada oo runtii sanadkan aad moodo inay dardar cusub la timido masaariic badan ay ka socdaan gobolka saldhiga maanta saldhiga noogu yaallay magaalada dhexdeeda ilaa magaalo cad oo wajaale 4 kiiloomitir jirta isaga noo ciidan ahaa alxamdulillah waa wax noo soo siyaaday culays badan buu naga furanayaa ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidamada birmadka Somaliland Axmed Cabdi Tiir iyo gudoomiye ku-xigeenka gudiga qandaraasyada Somaliland Cabdi Casiis Cagaweyne waxana hadaladoodii kamid ahaa waxa Ilaahay mahadiya maanta inaanu ama noo farxada inaanu joogno saldhigii labaad ee la dhex dhigayay ee magaalada Boorama saynu arkayno waa magaalo ballaaran laba saldhig oo quray lahayd ما شاء الله ما أنت لبك لا وسكر دي قار كلنا ويسكر دي دونان هذا وحنا نقول هذا علينا يا كودي ده قدراسيدا قرنكا تليها عيدك بوليسكا برصابك قبلك وزارة ده ولها جود وزير كريمها جودها كسر لك هراء هالكا يعني كده حدقني حدنا كيل لبعض ويكني أو أي كم ده سديد ده سلك يا إسكا كاشدين بس كده قرنك جمهورية Somaliland iyo hay'adda UNDP gudiga qandaraasyada qaranka waxa ay saldhigyadani oo loo dhiibay inay dhisaan Ilaahayna aanu ka baryanay inay runtii Ilaahay ku asturo ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland qaybtooda dhiska ama hoggaanka dhiska ciidanka booliska Sikariya Cabdi Sheekh Faarax Sikariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama